marka hore xubnaha golaha wasiirada ee wasiirka waxbarashada iyo saynisku uu koow ka yahay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha barasaabka gobolka Maroodijeex xildhibaanada golaha baarlamaanka xildhibaanada golaha deegaanka xuqaasha marti sharafta kale ee rag iyo haweenba leh gudoomiyayaasha magaalada Sheekh Moolde maanta inuu joognay gudoomiyaha degmada Faraweyne dhammaan marti sharafta halkan isugu timi ciidamadeena ammaanka saxaafadda rag iyo dumarba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إلهي تبارك وتعالى مهدله الله إن أبوري أمة الإسلام إن قدقي إن أرساقيا إن عموين كإنان كوبي كرين نسيي الله سينو مهدنا قينا أولا وحكالونو مهدنا قيا دمان بين تكسوا قيب قشي ما أنت حفلتنا إنو كفر ندوك سجن صار هويجا مقالة الشيخ مولده لقى هيرجليي وعن سموجي ميسان لوجو ما علينا وسيرك وسارده وحبر الشذا وحنبارسان سياسة حسب قتلة ذلك هي حكومة دبا كم تلاقيها في الكوحبر الشذا والسورة جليه دوك سجنين ودما يسترمو وحنو ما هذا علنا حسب قتلة هي وبرنامج كيسي كم إذا هيد وحقبت كوكو أدان وحبر الشذا إن لكبعيو أو لكوريو وباهيات كوحبر الشذا للدبرو سموجي ميسان لا نقول ما هذا علنا وحنو ما هذا علنا مدحوينها قروضين كحكومة دا وذن أبو سبيح عبدي oo intii talada dalka uu hayay wax badan runtii wax badan oo qarannimada ku saabsan iyo yagleelka dawladnimada soo kordhiyay isagana si mug iyo miisaan la ayaan ugu mahadcelinayaa runtii waa maalin taariikhi maanta waa maalin reer Sheekh Moolde iyo guud ahaan degmada Faraweyne iyo dalkeena Soomaaliland ba farxad u ah dugsiga inta la eego soo biiray oo aynaan hore u hayn oo maanta ilaahay nagu sameeyay wasiirkii dhagax dhigay inuu xariga ka jaray xubnihii kale golaha wasiirada iyo intaas oo dhan oo reer Soomaaliland oo culimo awdiin iyo aqoon-yahan iyo dadkii degmada iyo dhammaan bulshada qaybaheedii kala gedisanaa leh inay goobjoog u noqdaan runtii farxad weyn bay noo tahay laba saddex kalmadood oo dardaaran ma noqon doono tii oo aad loo dhameeyo warkii halkan aad looga yiri runtii dadka deegaanku bulshada reer Soomaaliland oo dhan baa kulay dugsigan iman doonta inta ka horeysa inaad ka faa'iideysataan fursadaasi oo priority-ga idinku ay yeelataan oo intaan shuruudaha adag iyo sidii istuwa wasaaradda waxbarashada gobolka halkan uu ka sheegay aanay imanin ama aan la isciriirin ama tiradu ay tiro go'an noqon doonto inay ka faa'iideysataan oo soo buuxisaan idinku taasi taa waa idinku waaninaya waana idinku dardaaraya وقضب كلمات وحنا هل كان كلمة كورنا يا ضد كمرتدى يدين إيمان دونا يجونا هل كان ده نلشوا التاريخ مركب وحبرشة ده بيستان تعب الرساق وشيء كورنا دونا الشيخ مولده ينلشي وحبرشة أي صامرين يجونا يصور في عن نجا قاتان ولا سودويو ولا بارجو أو الدريمان إن يدل كودي كي يمادين ويدل كودي ني يمادين ولا مرتدى دريمين تاسينا وايد قدر داريا runtii hadalka waan soo ururinaynaa waqtiguna way iska gabagabo madax badan iyo mas'uuliyiin fara badan ayaa harsan markaan oo waqtiga ka faa'iideysanaya ducadiina saaxiibkay Suldaan Axmed oo caalim madle oo raaxaji ayuuba baa inoo yiri taasina waxaan leeyahay Allah inoo aqbalo dhamaanteenba waxaan leeyahay duruufta inagu gadaamanay dalkeena waynu ognahay waxaanu nahay dal aan deeq iyo deyn aan midna dunida ka helin wuxuu helaa uu kooban yahay inaga isku tashano cashuurta yar dalkeena ka soo baxda ayaa qaranka dhan lagu maamulaya milaas qor ilaa qulujeed marka laga yimaado mushaharaadka ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dawladda iyo amniyaadka ku baxa ee la yiraahdo miisaaniyadeena sida loo eegay la yiraahdo horumar iyo dhismayo kaabayaasha kale dhaqaalaha runtii aad iyo aad bay u kooban tahay waxa inoo soo haraa taasi ayuu baynu isku filaysiinaynaa dugsiganina uu ka mid yahay waxyaabaha midhihii xukuumaddu ay keentay ayuu ka mid yahay taana waxa lagu suura gelin karaa bulsho waliba inay isku duubnaato in ay mar wixii horumarkeeda iyadoo oo midaysan ay soo doonato oo inagoo isxaq siinayna waliba baahida dalka taala ay inaga badan iyo dhaqaaleenu runtii ay aad iyo aad u kala badan yihiin inaynu taasina istixgelino oo istixtiraamno oo islaalino taasina kelmadaasan ka oran lahaa kelmadda ugu dambaysan hadalka ka baxaya waxa weeye diiwaangelintii codbixiyayaasha ayaa dalkana ka socota gaar ahaan degmada Faraweyne ka socota
ummadda reer Somaliland gaar ahaan dadka deegaanka waxaan leeyahay aan ka faa'iideysano waqti kooban baa hadhay qof walba kaarka aad qaadanaysaa wuxuu hiil u yahay degmada ama tuulada aad joogto wuxuu hiil u yahay gobolka aad ka tirsan tahay wuxuu hiil u yahay qaranka oo dhan waa kii hadhow mudanaha ku matalaya ee madaxweyne ku xigeen baarlamaan iyo dawladda hoose leh aad ku dooran lahayd marka kaasina inaad si mug iyo miisaan loo qaadataan oo dadka la wacyi geliyo oo diiwaangelintaasina laga soo dhalaalo ayaan ku dardaarmi lahaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa idin mahad celinaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.